الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. دانون هاي حسبك معارض كاهي وطني waxaan saaka halkan soo fadhiisanay xarunta xisbiga ku taala magaalada Hargeysa inaanu ka hadalno arrin runtii lagu tilmaami karo masiibo oo ka taagan caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa oo sababta masiibo lagu tilmaami karo ay tahay mar hadii caasimadda oo milyan iyo saa'id qof ay ku nool yihiin sidaynu la socono isla markaana caasimadii dalka ah oo meel oo indhihii qaranka ah mar hadaynu saaka ognahay in boqolaal ama la oran karo kumanaan meheradood inay u xidhan yihiin saaka biyo la'aan boqolaal ama kumanaan qoys oo dan yarihi inay saaka jirkaan la wareegayaan magaalada Hargeysa suuqyadeeda oo runtii aanan anagu saaka wadan ahaan tamar aanu wax badan ka qabano aanan haynin isla markaana ay nala haboonaato bal sidii wuxuu jiraan inaanu ku hadalno isla markaana aanu la qaybsano dadka iyaga dhibaatada una muujino dareen inaanu arinta aad iyo aad aanu u dareensanahay maadaama aanu laga bartay mar walba inaanu dadka u gudbino ama la qaybsano had iyo jeer waxa soo wajaha farxad iyo dhibaataba waxa ogtihiin in maalmahan dambe ay Hargeysa ka taagan tahay biyo la'aan baani waxa ogtihiin magaalada Hargeysa oo marka horeba la ciireysay ama aad ula dhibaataysnayd biyo la'aan oo aanay ku filayn biyaha ka yimaada geedebli inay waraabin jireen booyado ay leeyihiin dad shicib ah oo runtii dhinacna ay iyaga de shaqo abuur uga ahayd dhinacna aad runtii oran karayso caawin iyo gargaar bay u ahayd bulshada jilicsan ee reer Soomaaliland abasha ka jirtay dhinaca booyadaha nooca doonta waxay doontaa ku timaadee waxaynu ognahay oo aynu naqaanaa caalamka inay maadaama inaga lafteenu nahay dal dimuqraadi ah oo qaatay inay xorriyadda qowlkeena iyo inuu qofku dareenkiisa ku muujin karo shaqo joojin hadal iyo mudaharaad silmiye intaba inay booyadahaasi iyagoo ka cabanaya dhinaca cashuurta ay shaqadii joojiyeen in la dhageystay xaq u lahaayeen oo waxay ka cabanayaan la dhageysto isla markaana xukuumaddu waxay ahayd inay danayso aanay eegin iyaga ay eegaan bulshadii ay u dhaamin jireen iyo dadkii ay waraabin jireen ee dan yarta ahaa iyadoo xagga ka eegaysa xukuumaddu waxay ahayd inay tanaasulaad badan samayso haddaanay dabiqi karayn iyadu oo aynu arkayno inaanay hal booyada inaan xitaa xaafadaha caadiga ma aha ay DByada la geenin oo biyo bilaasho dawladdu ku shubtay geenaya haddaanay dawladdu xitaa taa bixin karin oo awoodi karin waxay ahayd inay iyaga la tacaasho oo codsigooda ay wax ka fuliso ama ay wada fulisaba iyadoo danta ummadda ka raacaysa xilligii madaxweyne Siinaay oo ku jiray ololihii kulmiye waxa kii campaign program oo ahayd oo waxyaabaha oo ahmiyadda siin doono kamid ahayd inuu biyaha caasimadda oo aynu garanayno inay halbooleeyeen inuu wax badan ka qaban doono oo runtii qof wal oo muwaadin ah oo dibadda iyo gudaba jooga ay u muuqato runtii arrin fiican bay ahayd in arrintaas oo kale campaign lagu galaa laakiin marka xukunka la qabto in laga dhabeeyo arrimaha caynkaas weeyaan waxaan la soconaa biyuhu inay yihiin marka oxygen-ta aynu neefsana laga tago waxa labaad ee soo raaca waa biyo la'aan horumar ma jirayo dhaqaaluhu kobci maayo dadku shaqo tagi maayo wadanka wax kale oo laga sameyn kara hadii dadku biyo la'yahay ma jiraan shaqaaqooyinka nolosha dhan baa ku xiran shaqaaqooyinka adduunka ka dhaca dagaalada la record gareeyay adduunka waxa ugu badan dagaalada ay biyuhu sababaan Masar iyo Ethiopia xuduud balahayn baa wabiga Niilka isku haysta dhaqankeeni hore inaga Soomaalida marka dagtay iyo kuwa imakaba deegaanada mar kasta oo la isku dilayo waxa weeyaan waxay ka bilaabmaan biyo waxaad arkaysaa inay tahay noloshii halka ugu dambeysay ee lagu dagaalamo inay tahay baad arkaysaa ammaanku ma hagaagaya haddaan biyo la helin horumar ma jirayo midka laakiin la yaab kale la isweydiinaya waxa weeye ee dadka reer Soomaaliland la yaaban yihiin annaguna aan la yaabanahay haddaan nahay xisbiga wadani tamarta xukuumadeena waynu ognahay laakiin waxa weeyaan qofku waxa dhibaya ee uu arka inay ummadiisa dan u tahay waxa weeyaan hadalkeeda iyo loobinkeedii in laga arko priority uma aha ama ahmiyadda koobaad uma aha biyaha caasimaddu dawladeena imika jirta xaqiiqo weeyaan taas waxaanu ka arki lahayn TV-yada waxaanu ka arki lahayn hadalka dawladeena ka arki lahayn wax ay ka mudan yihiin biyuhu oo daba socon lahaa haday tahay waxbarashada haday tahay airportada dekadaha jidadka
wax alla waxa biyaha ka mudan waxaynu aragnaa wax badan oo olole laga sameeyay iyo campaign waxyaabo badan oo iyaga laftoodu dib badan oo lacag badan u baahan oo aan filayay inaan mustaqbalka dhow aynaan qaban karin ay dawladdu ololayaal ku jirtaa ma qabo anigu inay jiraan wax ka mudnaan lahaa in biyaha Hargeysa dawladdu ay campaign u gasho sidii loo heli lahaa ilaahay idinkii dadka lacag lagu xukumo hana laga qaado qasab oo dadka waxay karaya qasab laga qaado shaqaalaha mushaharkooda laga jaro hay'adaha inay dawladdu u garaacdo waxa halka ka cad oo cid kasta dareensan tahay inaanay dawladeena priority u hayn biyaha caasimadu hal qodob baan inta ku daraya codsi weeyaan aanu jeedinayo booyadaha ragga booyadaha wata iyo dadka booyadaha leh anigoo runtii aad iyo aad uga xun dhibaatada iyaga laftooda gaadhay waxaan ka codsanaynaa hadaanu nahay xisbiga wadani iyagoo u naxariisanaya dadkooda oo u naxaya maadaama ay arkaan xukuumadda dalka haysataa inaanay danaynahayn dadka danyarta iyo dadka jilicsan ee caasimada ku biyaha la inay iyagoo ka eegaya danta ummadda inay iyagu sidii markii horeba ay ugu dabaradeegaan oo dadkooda aadka iyo aadka u baahan ay waraabiyaan ayaan ka codsanaynaa. Assalaamu alaykum.